daawadayaal halkan waa xogta qarsoon waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda dalka Itoobiya. Soomaalida iyo Canfarta dagaalkooda waa sii xoogaystay iyadoo dhul badan la iska qabsanayo. Awoodda dagaalkaas oo markana caawin ka kala helayaan dowlad deegaanada labada kala dhinac shacabka dagaalamaya ee miyiga. Warbixintaas ayaan muuqaalkani ku soo koobaya dowladda Itoobiya maxay arintani talaab ka qaadaysaa. daawadaadii ay tahay markii ugu horeysay channelka ku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon. magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed. waxaa ka codsan lahaa inaad ugu soo biirto aad channelka subscribe saarto. daawadee hagaag wararka laga helayo gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegay in mar kale saaka dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta uu dib ugu qarxay halkaas oo geystay khasaarooyin kala duwan. dagaalka waxaa lagu soo waramayaa in xoogiisa uu ka socdo magaalada Garbaciise iyo sidoo kale agagaarka tuulada Gowracan ee gobolka City. ila deegaanka ayaa ii sheegay in dagaalka la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana uu jiro khasaaro balse aan la cadeyn karin intuu leeyahay. sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in dagaalku ku sifido deegaano hor leh isla markaana uu sii xoogaysto maadaama labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo culus. ma jiro wax war ah ama wada hadal ah oo dhexmaray maamulada labada dhinac oo ku aadan deegaankaas dib ugu qarxay magaalada Garbaciise iyo tuulada Gowracan ee gobolka City. dagaalku wuxuu imaanayaa xilli shalay dowladda Itoobiya ay war ka soo saartay xiisadda Soomaalida iyo Canfarta iyadoo ballan qaaday inay wax ka qabanayso. si kastaba dagaaladan ayaa kuwa soo noqnoqday kadib markii maleeshiyaadka Canfarta ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dowladda Itoobiya ama dowlad deegaanka Soomaalida dalkaas. waxaa lagu soo waramayaa in hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday shacab badan ay ku dhinteen. dagaalku waxa u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta waxaana maalmihii la soo dhaafay uu ka socday halkaas inkastoo shalay xaaladdu ay degneed. dowlad deegaanka Soomaalida ayaa bishii la soo dhaafay ku eedeysay ciidamada Canfarta in dad ay ku laayeen Garbaciise. maamulka Soomaalida wuxuu sheegay inuu difaaci doono shacabka deegaanka Garbaciise iyo deegaanada ku hareeraysan. Itoobiya waxaa ka socda khalalaase iyadoo tani ay tahay mid kale oo halis gelinaysa siyaasadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. dagaalka waxaa la sheegay in awoodiisa xilligan uu wareegay Garbaciise waxaana tuuladaas bartamaheeda ku kala dagaalamaya Canfarta iyo Soomaalida iyadoo xusid ay mudan tahay in kolkii hore Canfarta deegaanada ka agdhow Garbaciise laga saaray walow saakar ragaal celin ay sameeyeen kadib dib ay u qabsadeen deegaanadaas iyo deegaano kale oo ka agdhow Garbaciise. balse ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa caawin waxay siiyeen shacabka deegaanka Garbaciise oo dagaalka kolkii hore kaligood ku ahaa waxaana taasi ay keentay in ay ku mintidaan Garbaciise. dowlad deegaanka Soomaalida waxay sheegtay inaysan marnaba bixin doonin Garbaciise oo ah fariisiinka ugu weyn oo xilligan ay ku tashanayaan guud ahaan ciidamada dowlad deegaanka waana sababta ugu weyn ee xilligan halkaas ay u difaacanayaan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida kuwa maleeshiyaadka Soomaalida ah iyo sidoo kale Canfarta oo halkaas doonaysa inay gacanta ku dhigto. waxaa la xasuustaa in dowlad deegaanka Soomaalida uu hogaamin jiray Cabdi Maxamed Cumar ilay deegaanada Garbaciise iyo deegaano kale oo dhowr ah oo ay ku jirto deegaan kale oo kamid ah deegaanada Soomaalida uu ku wareejiyay Canfarta uuna saxiixay balse waxaa arintaasi diiday maamulka hogaamiyo Mustafa Cagshar. xukuumadda waxa ay sheegtay in candhuufa cadhayatay Garbaciise ay siiyeen deegaanka Canfarta balse taas waxaa ka biyo diiday maamulka dowlad deegaanka Soomaalida uu hogaamiyo Mustafa Maxamed Cagshar taas oo laalay heshiiska dowladda dhexe Itoobiya ay taageerayso in deegaanadaas la siiyo maamulka Canfarta. tani xilligaas waxaa batay isku dhacyada u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta waxaana tani ay keentay in xilligan labada dhinac ay la kala garba saftaan Soomaalida iyo sidoo kale Canfarta. Canfarta waxay taageero ka helaysaa sida warar kala duwan ay sheegayaan dowladda federaalka Itoobiya waxaana la tilmaamayaa in ciidamo ka tirsan Amxaarada iyo sidoo kale kuwa kale oo kamid ah dowladda dhexe sida ciidan kale oo Oromo ay dagaalkaas qayb ka yihiin ayna la dagaalayaan ciidamada Soomaalida. balse Soomaalida oo taageero badan haysan ayaa waxay kali ka la dagaalamaya ciidanka Liyu Police ee dowlad deegaanka Soomaalida kuwa maleeshiyaadka ee Garbaciise ku sugnaay kuwa kale. waxaana la tilmaamayaa in dagaalkaas uu keenay in maleeshiyaadka labada dhinac ay dad badan iska dilaan. dagaalka maanta waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya ilaa 10 ruux waxaana sidoo kale guud ahaan haawanaysa magaalada Garbaciise. taas waa saameynta ugu weyn ee dagaalku ku dhaliyay walow wali aan la kala qabsan magaalada Garbaciise. Garbaciise waxay fariisin muhiim u tahay Soomaalida sidoo kalena Canfarta waxay doonaysaa in deegaankaas ay qabsadaan. dhanka kale Canfarta waxay ka soo cabsadeen ciidanka Tigray kaas oo keentay in dhanka Soomaalida ay u soo wareegaan. waxaa la tilmaamayaa in Canfarta aysan xilligan awoodi karin in Tigray iyo sidoo kale Soomaalida iska celiso taas oo Soomaalida ay guuli ka keeni karaan.
haddii ay Soomaalidu sii adkeeyaan dagaalkooda waxay arki karaan guul muhiim ah maadaama canfarta sidoo kale dhinac dagaal ay ka wadaan Tigray ayaa doonaysa in ilaa iyo Addis Ababa ay qabsadaan taas oo ah ujeedka ugu weyn ee xilligan ay u dagaalamayaan waxaana xusud mudan in ay ballan qaadeen in ay qabsan doonaan ilaa deegaanka ugu dambeeya oo ah Garbaciisa sida wararku ay sheegayaan dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ayaa taasi waxaa la sheegayaa in Tigray ay caawin siin karin labada dhinac balse Tigray waxay doonaysaa oo kaliya inay cagta mariso cid walba oo iyada ka soo horjeedta ilaa ay ka qabsato Addis Ababa inkastoo Soomaalidu aysan saameyn ku yeelanayn haddana Canfarta dhul badan oo kamid ah dhulkeeda waxaa loo maraa Addis Ababa marka laga yimaado gobolada Tigray taas ayaa Canfarta baabi'in doonta waana guusha kaliya xilligan Soomaalida ku tiirsanayaan dagaalku waa mid uu sii xoogeystay waxaana jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo dowladda Itoobiya ee arintani ka sameynayso walow dowlad deegaanka iyana dhankeeda ay ciidamo liyu boolis u dirtay Garbaciisa si ay u kaabaan ciidanka maleeshiyaadka Soomaalida ee la dagaalamaya maleeshiyaadka Canfartana waxay taageero ka helayaan ciidamo ka tirsan kuwa federaalka Itoobiya kuwa kale oo ah dowlad deegaanka Canfarta iyo sidoo kale Amxaarada oo kaabaya dhanka kale dagaalada ka socda Tigray ayaa sii xoogeysta waxaana la tilmaamayaa in wadahadallo aysan ka socon dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku fashilmaya inuu xalliyo arrimo kala duwan oo siyaasadiisa waxaana mid kamid ah ay tahay dagaalada Tigray haddana waxa uu walaac ka muujinaya dagaalka ka soo cusboonaaday Garbaciisa ee Soomaalida iyo Canfarta Abiy Ahmed ayaa taageero ka heli lahaa Canfarta maadaama isaga dhankiisa ay la safan yihiin balse Abiy waxa uu ku fashilmay in uu taageero ka helo guud ahaan dalka Itoobiya Canfarta Oromada qayb kamid ah ma taageersan Abiy sidoo kalena Amxaarada ayaa kuwa kaliya ee wax yar ay wada taageersan yihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed TPLF oo jabhado badan ka kooban dagaal diyaar u ah ayaa waxay taageero sidoo kale ka helaysaa Oromada oo uu ka dhashay Abiy Ahmed taasi waxay sii xoojisay dagaalka ka socda dalka Itoobiya oo kamid ah wadamada quwadda ciidan kale qaaradda Afrika ayaa waxa uu ku socdaa wada burbur ah waxaana xusud mudan in ay tani u muuqato midii ay ku burburi lahayd walow siyaasiyiintii dadka falanqeeya siyaasadda geeska qaaradda Afrika ay tilmaamayaan in Itoobiya si dhaqsi ah aysan ku burburi karin balse haddii xukunku ku sii fadhiyo Abiy Ahmed ay keeni karto in dalkaas qalalaaso iyo sidoo kale dagaallo sokeeye uu dhexda ka galo Abiy Ahmed wuxuu sidoo kale taageero ka raadinayaa wadamada caalamka safarkiisii ugu dambeeyay wuxuu ku bixiyay dalka Turkiga halkaas oo ra'iisul wasaaraha dalkaas Abiy Ahmed uu ka doontay taageero si uu u muujiyo in uu halkaas wax un yar oo ciidamadiisa lagu taageerayo oo ka helo sidoo kalena uu kaga adkaado dagaalka dabada dheeraaday ee 10 bilood sii socda ee uu isaga caawinayo ciidanka Tigray hagaag daawadayaal muuqaalkeeni waa naga intaas nabadgelyo